mar walba haddaad rabto inaad ku noolaato farxadda midda ugu quruxda iyo qiimaha badan waxaad aad ugu dadaashaa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam meel kasta aad ku sugan tahay iyo meel kasta adduunka aad ka joogto iyo si walba aad u ahaatay mar walba ku mashquulsanow inaad ku salinayso nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo mar walba aad tahay mid dikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala carabkiisa ku haya waxaad noqonaysaa mid ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyo mar walbana alla uu jecel yahay la amaano meel rabbi jecel yahay maahana meel kale lugta aan loo dhigin laga xijaabo laga dheereeyo inta alla dheereeyay ee shayaadiin insi wal jinni saadarteed haddaad rabto adduunkan aafoobay ee meesha uu ku socdo ay halista tahay ee dadkii diinta iyo qiimaha lagu yaqaanay maanta ay dharka dhigtaan ilmaheennina maanta ay yihiin kuwa laga harsan la yahay ummadeennii diinta u saaxiibka ahaydna aynu nahay kuwa isgumaadaya ee mar walba carradu uusan dhiigoodu ka qalalin aynu ku dadaalasayna u badbaadno saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo dikriga adkaarta iyo tasbiixda aynu ku dadaalasayna u noqo mar walba kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay ilaahayna uu ilaashado wuxuu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam in adduunka sanadba sanad ka dambeeya uu ka shar badan yahay waxa looga kaliya looga badbaado oo ilaahay uu kaaga xifdinayo waa dikriga ilaahay waa inaad ilaahay ku xidhnaato waa inaad noqoto qof mar walba ilaahay la saaxiiba ilaahay mar walba u dhow dadka alle u dhow ma hoojiyo meel xun ilaahay ma mariyo inta ilaahay uu dheereeyna uu ka ilaashado isaga ayaa ilaashado ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa haystaan alla waa u barakeeyaa qulubtoodu alla hantaa qalbigooda mar walba alla wuxuu ka buuxiyaa farxad hatta hatii la imtixaamo oo ilaahay uu imtixaamo oo allaha wadala uu imtixaamo qalbigoodu ma aha mid hooga oo ooya waa mid mar walba alle ku shukriya oo yiraahda alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uga sii ziyaadiyaa iimaan iyo khayr oo dhan meel kasta joogtaan waa mahadsantihiin allah idin sharfo aynu ilaahay mar walba ku xirnaano aynu noqono dad mar walba ilaahay ku xidhan subhanahu wa ta'ala waynu guuleysanana waynu liibaanayna jannatul firdaws la calaana ilaahay subhanahu wa ta'ala hooygeena iyo meesha maaragtay aynu ku dambayn doono ilaahay subhanahu wa ta'ala allah ka dhigo meel kasta joogtaana waxa idin leeyahay aynu mar walba aynu ilaahay ku xidhnaana macnaheeda ilaahay ku xidhno waxay tahay mar walba noqo qof ilaahay dikrigiisa subhanahu wa ta'ala ku mashquulsan haddaad dikriga alle ku mashquulsho ilaahay adigana subhanahu wa ta'ala uu ku ilaashanaya wuuna ku xifdinaya adoon uu leeyahay ayaad noqonaysaa waad mahadsan